raggu waxay jecel yihiin in dumarku ay ka helaan saddexdan dabeecadood oo ay ku sifeysnaato sifooyinkan. midda koowaad waa inay inantu ahaataa inan dhowrsan misana asturan. midda labaad waa inay inantu ahaataa inan afgaaban weliba xishood badan. midda saddexaad waa inay inantu ahaataa inan leh dhaqan wanaagsan iyo dabeecad deggan. dumarkuna waxay ka siman yihiin raggu inay ku doortaan saddexdan dabeecadood. kow inuu ahaado nin naxariis badan misana uga taxadara sida inantiisa oo kale yacnii gabadha uu dhalay. labo inuu ahaado nin dulqaad badan oo haddii la isqabto noqda kii u sabra xaaskiisa. saddex inuu ahaado nin xushmad badan oo xaaskiisa u qadariya sida hooyadii oo kale. haddaba inantii nasiib u yeelatay inuu alle subxaanahu wa tacaala ugu deeqay dabeecad iyo dhaqan wanaagsan, ogow waxaa tahay gabar yacnii inan uu nin kastaa ku fikiro oo uu ku hamiyo inuu helo. sidaa awgeed isku day inaad ilaashato oo aad ku dhegnaato dhaqankaaga iyo dabeecadahaaga wanaagsan, waayo adiga ah qofka keliya ay cid kastaba baadi goobayso oo ay raadinayso inay xiriir la samayso. sidoo kale ragga uu alle subxaanahu wa tacaala ugu deeqay dhaqanka iyo dabeecadaha wanaagsan, waxaad ogaataan in dumarku ay ku hamiyaan inay helaan nin adigoo kale ah, ee isku day inaad xajisato dabeecadahaaga wanaagsan. waxaan allah subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa rag iyo dumarba inuu siiyo dhaqan iyo dabeecad wanaagsan, uuna u fududeeyo guurka intiiba guurdoon ah. aamiin aamiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.